تضرب قبل بيهلي يندر واي سداد قبل waxaa helaya daarad واي marka waaba isku ogaadeen iska badaa baan ku ogaadeen iska badaa waay sideed gobol baad helaysaa fiiri shan ilaad kala goyn soo laba ma gobolkan hadda ina shida uu qaatay baa la kala goyn waa mis soo afar ma qalaaf iyaga u badan iyaga qaadanay waa mis waa shan halka oga dhig hal oga dhig shan soo maaha waxaad ku dartaa kan hadda awaare waa lix awaare lix waa lix soo maaha maxaa dheeraa marka ku hore waxaa jiray hadda kii kale baashi ugu dar lix toddoba weeyaan waa kan nagiile baalki mooyaane libaan ha waa toddoba ada maxaad leedahay mid baan kuu sheegi ruux dhintay haddaan un sii canaanata ka war maxaad noqoni mayd canaantaa tahay dee adiga marka weligaa ilaahu hagaaji waxaan ka hadlayaa oon leeyahay mustafa iyo xukuumaddiisa mucaaradka ha ku dhaganaanin ee muhiimaddu waa waxqabad diinta wallaahi so wallaahi magaceeda ma azlaad meeha wallaahi rag badan baa feer ku dhici lahaa wallaahi wallaahi billaahi soo magaceeda ma rag badan baa kamaneedka anoo fadhiya hadday ka dhici lahayda wallaahi rag badan baa ku dhadhejin lahaa wallaahi meesha aan ku waayo haddii la doono ha laygu xidho haddii la doono wax baa ka dhacee waxaa jira wax u baahan dhiig iyo damiir ruuxu waa inuu gobolkan u dhashay mustafa maanta wuxuu iga marayaa inaana mar dambe cod iska daayay saamayn dambe anaa isku yeelan gobolka wardheer waa gobolka onalaf bixiyey halgankaad artay bixiyey fiiri gobolka wardheer wuxuu ahaa waa gobolka ugu taariikhda dheer soomaali gubada aad aragtay meesha ay ka horeysay iyo meesha ka bilaabatay wardheer baa waraha fiiri historiga iyo taariikhda gobolka wardheer uu leeyahay waxaan idhi maduri kalaa la dagaalamaysa kii u dhashay baaba sidan samaynaya cabtan iyo camuud iska qad ceelka haran magan hadday curudada inuu leeyahay waa cabbi ilaahay علشان مركب وليه عمود حقيقي يلا وورنر برتنك بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن الهانتين بداود يال كسر دوادا برنامج جارها وإنه كويج الدنيا دنكاسي الدولة ديجان كصومالي دا معلمه يودن بيسي ديجان كصومالي دا قيبة كم ده وحكت جناب بنا بحية وين أولو جسور جدي أنصحنتا لا أنصحية اسمه من المجالوين يدقمين عصب أو الدولة ديجان كصومالي دا لو صدره هذا البرنامج كان waxaa si wada jira ila falanqeyn doona saaxiibkay Cabdiqaadir Dhaga Cadde oo studio ay gula sugan Cabdiqaadir soo dhaw saaxib walaal waan dhawa dawlad deegaanka Soomaalida maalmahan dhibaato ka taagan qaybo kamid ah goboladii deegaanka banaan baxyo rabshado wata ka taagan deegaanka waxa lagu soo daray ismaamul magaalooyin ilaa 25 ka kooban ilaa 4 degmo iyo 4 gobol bal xagaabi baashu ka khaldan tahay dadkan banaan baxaya dhanka gobolka doolayna ku horeynayna nin war lagu si way aniga qabiil iyo qolo u fiirinay hay oo cadaalad ilaahay fiirinay hay shakhsigu markuu masuul yahay waxa fiican inuu si cadaalad ah u maamulo way nin walbana xaq u leeyahay oo siiyo heer baa wuxuu yahay 2,000 way heerna 1 milyan buu yahay way isku xuquuq ma noqon karaa waa maya marka runta mugta reality ga laga hadlo gobolka doolo horta wuu dulmay way gobolka dhan wuu dulmay wuxuu ku dulmay yahay gobolku 12 gobol ee hore jiray oo gobolka ugu weyn dawladihii hore gobollo soo baxay lagama jarin way taa marka dawladda TPLF ahaydoo lama faragelin karin ba way xilliga awood la lahaa ma jirin way ruuxu wuxuu maaga u sameeyay tan laakiin maanta xisbi dagaalamaya ma jiro wadankii uu kala degan yahay waxa la xorto qowl baa jira nin walba xuquuqdiisa xaqiisa wuxuu leeyahay helaya Soomaalidu qabyaalad iyo kama tagto ya meel jaclaysi way rabitaankiisa meesha uu rabo kama tagto waxay ahayd gobolada kowl in la kala jaray ay ahayd labada gobol ee ugu waaweyn ee gobolka Wardheer iyo gobolka Afdheer buu way ka bacdi gobolada kale in loo galo way laakiin fasti in xuquuqdii xaq la siiyo labada gobol bay ahayd way mayna siinin mayna siinin hay waxa weeyaan waa mide waa labada gobol ee ugu waaweyn hadana boodharada leh
labada gobol ee ugu waaweyn ee boorarada hadda Soomaaliya leh weeyaan waxaa jira gobolkii Wardheer ahaa dad badan baa wada degan ilaahayna ku wada abuuray dadka wada degan dadna waa qanceen oo hadda waxba lagu aamusiyay nin degmo la siiyay nin ismaamul magaalo la siiyay dad baa qancay laakiin nin yahow la dhihi jiray muxuu ahaa gobolkii dhanaa heer la dhihi jiray Makaahil wax matalaada kuma laha wax matalaada ma kulaha haddii hadda sidan tahayna ma ku yeelan doonaan waa kow horta Makaahil siyaasi u soo kacay oo dalka Itoobiya u jooga ma jiro aragtidayda aniga waayo markii miiska la wada fadhiistay ee golaha community-ka la wada fadhiistay faatax gobol la yiraahdo qalaaf soo saartay oo jeexdin loogu talagalo naxsaday ina hore wuxuu yiri jeexdintan hal ay dhaafiyo oo aniga qoraxay waa in shilaaba laga saarno shidaalku way cagahayga ku jiraan haddana musaqum cadle uu ku mahadsan yahay midaas wuxuu siiyay degmo wuxuuna siiyay ismaamul magaalo oo shilaaba ah oo waliba xoog badan yihiin ha ahaatee musaqum cadle way ku faraxsan yihiin waliba maanta aad bay ugu dabaaldegayaan ما الشلابة اللي سي والشلابة اللي سي مصقم عدل مصقم عدل اللي سي قبيل كليا مصقم عدل اللي سي فهذا مكاهيل كمده يقوم عدل مركي لانه مصقم عدل والريق بدهر اللي سي يجا تاوان ugu jirto aniga bad reeshlaabo si oo ahba oo shilaabo markii la fiiriyo meel wadnaha ay ku taala waa igama duwana meelaha qaar kood waayo meel aan xoolo kaga raacin iyo meel aan marin ma jirto shilaabo way yartaa xaqana waxaan ka soo gaaray meesha la yiraahdo dhuriyatay ilaa foljeex ilaa ceeloogaadeen xaqana haar cad iyo dhoobaweyn xaqana ilaa xaafun ilaa lafaha waaweyn ilaa meesha la yiraahdo caleen iyo culaajin ilaa xaqan jaleela ka gaad ilaa xaqa ka soo rogo qamuudi iyo halka ka tag alashan deegaankaasa oo musuq macalla degan yahay oo marin oo xoolo ku raacin weeyar yahay naxariistan Allah ka warabay awogay wuxuu ku aasan yahay la soo reebile waxa weeyaan marka deegaanka anagu shakhsiyadayda tirsado waa shilaabo shilaabo iga duwanta waana ka jeclay meelaha ha ahaatee waan ku faraxsanahay waa degmaan anoo helay weeyaan iga dhiganta laakiin Makaahilkii Wardheer uu dulmay yahay waraan waliba anagu waxba ma haysanay qoliyahan Ibraahim waxba ay haysteenay Ismaaciilkum Cadle looma tibxidin hadduu Ismaaciilkum Cadle maanta degmo heli lahaa ومكاهيل إجرب تاجن ونجرب كهل ونقولها أو حوك ينقضها قعوينها دي دقمة لصين لها إذا مكاهيل تاجن بوحالها لهل يعب أنتو أحمد بالكي نكي إن إلى سهول رأي ونجينا كلابحنا يا هدنا وحالي قبلاجي قمودة يا وحال قبلاجي يعب يا وحال الله ورد اسمه من مجاله يقول لقوا أمسيري لهل يعبنا اسمعنا على الإسلامية هات وحويا واسكولار الحرق مرن يكلن أمانن Ismaaciilkum Cadle iyo Ibraahim inay isku dhacaan maanta ay fashilaadeedii taala maanta iyo fashilaadeedii taala oo waxay u taala wax kale uma taalo waxa weeyaan in labadaas isku sii jeedaan oo aan iyaga laga faa'iideysto ninka siyaasigu adiga intuu canjeero ku qooyo ku dubi maayade afkana ku galin maayo ma soo isaga intuu dubto afkiisu galindey sax haddaad isha ka badhiidiso oo aad tiraawniyo ninkan ma wax iga siiyo hadii waxba heli maysid laakiin haddaad tiraawo ruuxna siidee waxaan rabaa inaan kula wadaago siyaasiyiinta gobolka Wareer u dhalatay saamayn ma laha hal wiil yar oo dhinacan ka soo jeeda hadda meesha liya marqaan oo degmada isagu keentay iyo ismaamulka keenay mooyaane oo kamareedka ku jira mooyaane halka wiil mooyaane inta kala saameyn ma laha hadduu majeerteen yahay hadduu Makaahil yahay oo ninka Axmed Yaasiin urka iska bax matalka koobaadba Axmed Yaasiin waxa weeyaan wuxuu ku magacaabay yahay gobolka Wareer war xataa nin baa intuu calool adeega heerkan uu la yiri alashan Ibraahimka la yiraahdo ee uu arsan heer haanta uu ku joogay ku matalayo iyo xataa ismaamul magaalo iyo danad u soo qaadi waay ama daratool u soo qaadi waay ama qorilu degmo ka dhigi waay maxay isla doorsho ii tahay marka aniga maxay ii taraysaa anaga waliba suuq wax yar kursiga Ibraahim baa ku fadhiya kursiga maanta gobolka Wareer Ibraahim baa ku fadhiya gabaygu naga sii xiran yahay wal ceebaysana meel cilaana Allah way waxa keenaysa waxa la yiraahdo Axmed Yaasiin in cagjar bay aad isugu dhawey in cagjar bakhraatibaad ka tahay in xitaa heeraha kale aan walaalada nahay
ay dhahaan cabdiqaadir baha ogaadeen baad u samayseen shirki ixtiraamkan ugu qabanay saad ogeyd baan ugu dabaaldegnay saad ogeyd baan isu raacinay ogaadeen oo dhan isku keenay waa madaxweynihii kilalka ku waxaysan aan idhaahno ha ahaatee axmed waxaan u garaacnay libin aan caadi ahayn isagoo mahadnaqayo axmed yaasiin naga tegey oo madaxweynihii sharaf aan ugu soo hoynay ma tahabisa maaha maxaa laga rabay ruuxu markaad wasiir tahay waa inaad wasiire alliance la leedahay waa inaad madaxweynaha alliance la leedahay waa inaad xidhiidho hoose leedahay waa inaad federaalka ku dhex jirto waayo goobta aniga hadda waxaan aaminsanahay hadduu fadhiyi lahaa nin la yidhaahdo cabdifataax sheekh biixi hadduu fadhiyi lahaa hadduu fadhiyi lahaa meeshaas ama goobtaasu isku casili lahaa oo lagaga tegi lahaa ama goobtaasu waxa uu leeyahay ku heli lahaa marka hadda waxaa leedahay axmed yaasiin axmed yaasiin mambarkii aan ka rabnay axmed yaasiin mambarkii aan ka rabnay maanaan ka helin waxaa lagu dabaqay ama lagu qanciyeyna ma garan karo oo guda ahaan anuu ma ogey laakiin walaalkii waxaan ka rabay waayo jifa ahaan anuu isii xigaa jifa ahaan anuu isii xigaa war cabdiqaadir hadde gabaygu idinka xidhan yahay hadalkan idinka xidhan yahay maanta idinkaa wasiira hadduu maanta ismaaciil gucadle wasiir ahaan lahaayeen dee maanta ismaaciil gucadlaan ku dhegi lahaa mabeen ma soran laakiin maanta waxaa xilka gacanta ku haya waa abraahim welibana ana raaskayga oo heerfeyna ila siica waa gacanta ku sii haya maxaad dhihi kartaa marka adiga hal mar gobolkan doolo maadaama dadkii wixii ay mudnaayeen aan la siinin iyo haddii la rabay in gobol kale lagu soo kordhiyo iyo ismaamul magaalooyin degmaba yaa saamigii dadkani reer doolo ay lahaayeen cidda la sidee lagu wareejinaya yaa horta mareexaan degmadiisii buu helay dhulbahantana degmadiisii buu helay majaarteen oo 3 degmo lahaa galaadi baa loogu daray ismaamul magaalo matabis maaha wardheer waa meel la wada leeyahay wardheer waa la wada leeyahay makaahiloo wada leh majaarteen baa leh abayoonis baa leh dhulbahantaa leh maaragtay mareexaan baa soo gelaya waxa weeyaan intii wada degan oo dhan baa wada leh qola xitaa musuq macallaa nala degan oo reeshalaabad xaggan iyagoo ka ah yaa qolo musuq macallaa xitaa nala degantaa wareer markii la eego oo xuquuq iyo xaq bay leeyihiin ha ahaatee haddii si transparenty ah oo yaan la hogaamin kara ay ahaan lahayd oo hawshu hawl qabaa'il ayna ahaan lahayn waxbay ahaan lahayd laakiin hawsha soomaalida waxay tahay inta badan lagu fadhiisayaa qabiil 4.5 meel walba adduunkii yaa gaadhay ha ahaatee maanta cadka aad leedahay fiiri cadka aad leedahay haddaad goosan weydo horta kilalku mid buu leeyahay sheeko lagama yaqaano waxani waa xaaraan waxan cadaalad ma aha lagama yaqaano ninku waa inuu tuug yahay waa inuu khaa'in yahay waa inuu munaafiq yahay waa inuu 24 hours ku jiro wax malaa'igtana ka xanaajiya munaafiqna ka farxiya waa inuu calashaan ku shaqaysto haddaad tiraahdo hoostaan wax ka eegi hadda ninka la yidhaahdo hadda ninkana walaalaha nahay hadda axmed yaasiin meesha hadda ku jira waa nin sidiisa kale cadaalad horta fiican taariikhdiisa waan hayaa sheekh ibraahim cabdisamatar baa dhalo nin culimo caalima dhalay inta badan waxa xaaraanta uu ka carraa ruma fiican marta laakiin markii meeshan oo kale miskan oo kale matalaadan wax lagu gogoosanayo adiyaa lagugu dilin sumcadda maanta ku raacdana weligaa waa waxaan kaa hadhayn soo hadda kulama hadlay wallaahi wa billaahi wa tullaahi soo magac ilaahay ma ah sumcad xumida uu maanta axmed yaasiin halkaa ka qaaday 20 sano iska day 30 sano dambe xitaa kama hadhayso xitaa haddii hadda maanta la gobolka wareer waa la kala gooy xitaa haddii la dhaho maxaad shakhsigu matalaad ku leeyahay waayo waxaa la dhahaa waa best friendska waxaa la dhahaa mustafa maxamed cumar madaxweynaha dalka yaa waxaa la dhahaa best friendska ugu yahay wuxuu oga tagaa madaxweyne kusimaha ayaa looga tagaa kalalka isaga ma tabiso maaha gobolkii aad ka soo jeeday ee magaca iyo muuqaba ku lahayd ee gobollada ugu weynaa fiiri aadan faarax madaxweyne ku-xigeenka u jooga ciise ah wuu qaatay gobolkiisi wuuna goostay ma tabiso maaha ina shide booskiisii buu gonro gobol oo la baxay gonre hadda waa gonre waxa u jooga bahalka nabadgelyada hoggaanka nabadgelyada jooga wuu qaatay ninka la dhaho allahu musta'aan kii dagoodii ii sheeg maxaa magaciisa faatax miyuu ah ma faatax ma waa bagriye kii dagoodii ii sheeg ku dagoodii doolo tan kale la kala jaray gobolka doolo waa la kala jaray mugta bahalkii daawo
waa la kala jaray isagana saddexda gobol ee moogtay korre weeyaan meesha la dhaho meesha la yidhaahdo hadda muxuu ahaa awaare haddii awaare caasimadda laga dhigo xogaa reer isaaq way yara badbaadayaan inkastoo reer isaaq iyo isaaqba wada degan yihiin waayo degmo cusub bay qaateen ina ii daahir degmo cusub buu qaatay gaashaan buu qaatay daroor buu qaatay fiiri isaga waa dig iyo awaaro oo ku xisaabtamayo iyo baashi iyo caale saddexda degmo weeyaan waa saddex iyo saddex adow saddex bay u kala degan yihiin powerka marka kana la soo magacaabi kara kana la soo magacaabi kara hadduu xilka ka tago oo nin kale oo qabsadana waxa laga yaabaa in isaga loo soo magacaabo gobolkan cusub haddii dig laga dhigo waxay noqonaysaa in meesha ka baxay ma reechareed baa qaadanaya markaas maya jinfide markaasi gobol ahaan caasimadaada meesha adiga lagaaga dhigo fiir gobol ahaan meesha adiga caasimadaada lagaaga dhigo hortaada wax ku heshaa haddii gobol qoraxay loo soo magacaabo oo qabdaar laga dhigo dee jifadii deganeed baa le sooma ma tahay mise maaha dig haddii laga dhigo kuwii deganaan baa yaa nacfigu inta badan ayay gaarayaan laakiin awaara haddii la gaayo awaara waa boodhan haddana isaaq iyo maxaa wada degan nimanka la dhaho isaaq kowdhe iyo waxaa wada degan iyo ree isaaq waxaa kale oo jirta way wada degan oo wada degan yihiin ha awaara wada degan yihiin laakiin waxaa jira kuwa aan la ilaawi karin kuwa hee aan la ilaawi karin awaare hadday iidoor noqoto isaaq noqoto iyo hadday ree isaaq noqotoba awaare ninka aasaasay waa sayidina suleymaan sayid suleymaan buu ahaa ninkiis aasaasay magaalada waxaa magaalayena sayid suleymaan buu ahaa ma tahay mise ma aha sayid suleymaan wuxuu dhalad ahaan waxaa la dhahaa waa fiqishini laakiin fiqishini waa niman dir ah xagna waa dir baa la dhahaa xagna habar gidir baa waa nimankan hadda dee dhulmaantaha la degana fiqishini calashaan baalkiya marka sayid ilaahay doortay buu ahaa oo nin caalim ahoo aada looga muftiyo oo weli ilaahay buu ahaa oo inta badan aad maaragtay barakada ilaahay aada ugu badiyey meeshana waxa saldhigga usii ahaa oo xerow usii ahaa sheekh maxamed khaliif buu ahaa sheekh maxamed khaliif sheekh axmed nuur xaaji yuusuf weeyaan ninka calashaan salka u dhigay sheekh sayidku markaa wuxuu ka yimid nogob iyo xaggaasu ka yimid waa ninka muxuu ahaa ninka la dhihi jiray sayid nuur cabdille iyo muxuu ahaa ninka la yidhaha xasan muxuu ahaa sheekh xasan batuul iyo oo adisaba ah iyo sheekh yuusuf baxar iyo calashaan muxuu ahaa sheekh ninka la dhihi jiray sheekh maxamed khaliif iyo rag badan baa calashaan dee xertiisa iyo dariiqadiisa ah ninkaasaa marka asaliyan magaalada asaasay waa in bayoritiga koobaad iyaga la siiyo qabiil inaan loo fiirinayna meesha maadaama mid kasta nimankii magaalada saldhigayna ay tahay waa inay hoggaankoodii reer sayid suleymaan helaan ina cagjarna uusan u dayma la'aanin reer sayid suleymaan awaare haddii lagu soo celiyo oo caasimaddu awaara noqoto inaan sayidkii awlaadiisa madaxa sare laga dhiga midaas waa dardaar dig haddii laga dhigo maxaa iyadana dhici kara dig reesaaq baa leh digayaa kula doolaal soo ma tahay mise walaalle ha ahaatee waxaa aniga ka hadlaya waxaa weeyaan walaalle gobolkii doolla ahaa ee weynaa horta hal baan kuu sheegi daarood ismaaciil soo daarood ismaaciil ma aha kilalka maanta minority buu ka yahay wixii la dhihi jiray majority buu yahay ma jiraan qabla laxbaa daaro yaa bahalkii ahaa majority ah ma jiraan ogaadiin baa majority ma jireen yaana ka dhigay madaxweyne mustafa maxamed cumar waa meeshan tusaalaha hore kusoo siinayo ku lahaa 2,000 oo qof 1 milyan oo qof isku saami bay noqon karaa ma noqon karaa marka waxaan leeyahay adoo tolkaa iyo dadkii aad ka dhalatay aan dulmaynin dad kalena iska dhisaynin madaxweyne xuquuqda iyo xaqa ay leeyihiin ogaadeen ogaadeen nogob waa la qaylayaa gobolka nogob waa la qaylayaa meeshii maxay ahayd qabdahar duursheeda ahayd magaceeda muxuu ahaa xasuusi maya meeshii maxay ahayd shilaabe maya meeshii kale degmada hadda loo rabay ii sheeg magaceedii qolada hadda mudaharaadayeen ii sheeg meesha gabagabo degmay lahayd warama sabeen waxa weeyaan nin walba percentage-ku lahaa in la siiyo oo la adkeeyay ahayd ma aha jifa adiga kula dhalatay inaad la dagaalanto waxba kuma tarayso macnana kuma soo kordhinayso adiga waxaad samaysaa ninkii hore ummadiibu dulmay baa ka soo qaad wuu baabi'iyey
لكن هل لامي ودس كسوقات هل كلامي ودسي لامي كنت بقى يصير صادقه مد كله مد بقول شيء روح دنتي هذا سي انا تكور waxaan noqoni meed canaanta tahay de adiga marka waliga ilaa wax hagaaji waxaan ka hadlayaa oo leeyahay Mustafa iyo xukuumaddiisa mucaaradka ha ku dhaganaanin ee muhiimadu waa wax qabad mucaaradka mar laga bahari baa jirta moogta adiga wax qabo waxaad qabatana wax adiga saameyn kugu yeelata yeena noqonin dadka raxmadda Ilaahay ummadda ma gaadhaba waa run laakiin nin walba xuquuqdu lahaa si waayo allahi ina abuurtay markaad xil qabato adoo kala xisaabtamaya adiga yuu kala xisaabtamaya maanta gobolka oo maanta Mustafa gacanta ku hayo gabadha maanta joogata gabagabo ee baahata Mustafa la weydiinay waa xukunka isaga hayo waa sida islaamiga gabadha baahata ad wax kale aad ka hadlaysaa ee dab shidan way dab loo shidi waayo ee baahata weylaka waa dushiis way dhaga cadow hadii marba golihii kabineetka ay horgeeyeen baarlamaankina ay qalinka ku duugeen ansixiyeen maxaa hadda laga qaban karaa baarlamaanku dawlada baarlamaanku waa baarlamaankeeni baarlamaanku wuxuu yahay waloway meema soo talaabooyin wax ka bedel lagu sameyn karo oo meesha waa Ethiopia meesha waa Ethiopia walaal nidaamyo badan oo ka shaqeyneen baa jira ay dadku si moodayaan ma si freedom oo dimuqraadiyada oo freedom oo alashan inta baarlamaanku soo istaago yiraahdo waxa ma yeerayno lama dhihi karo marna sabeen gobol waxa lahayd faafan jigjiga gobol lahayd gobol waxa lahayd wardheer gobol waxa lahayd meesha la afdheer marna sabeen sida loo kala lahaa in wax loo kala haysiyo ahayd aniga oo xalay hada tira aniga oo xalay suuna heerkanagana igu kicin baan hawshan u sameeynaya hada bari waad ka tagi saad adigu sameysay si ka daran buu ka kala sameeynaya maxaad sameeynay waxa kale oo ka duwan maanta kilalka dawladda federaalka waxa qorayd ninaan ogaadeen ahayn inuu madaxweyne ka noqon karin maanta ma noqon karta dee 7 gobol bay helayaan dir 8 gobol waxa helaya daarad marka waaba isku ogaadeen iska badaa baan gool ogaadeen iska badaa 8 gobol baad helaysaa fiiri shinilaad kala goyn soo laba ma gobolkan hadda ina shida uu qaatay baa la kala goyn waa mis soo afar ma qalaaf iyaga u badan iyaga qaadanay waa mis waa shan halka oga dhig hal oga dhig shan soo maaha waxaad ku dartaa kan hadda awaare waa lix soo maaha maxaa dheeraa marka ku hore waxaa jiray hadda kii kale baash ugu dar 6 weeyaan waa kan nageyle baalki mooyaan liban ha waa 7 هذا محل لا وقبدهر ووردير المحوها ولا قبدهر ولينا وردير waxay soo galaysaa on kabla la xabay ku soo galaysaa nin kabla la hada xukuma kabla la xalimo ku soo galaysaa ogaadeen iska badaa warkiisa iyada kabla la xalimo ku soo gal daarood baan ka hadlayaa anu moogtahay waa wardheer waa qabdahar waa goday waa meesha la dhaho fiiq waa nogob waa Allahu musta'aanay maxaad igu dartaa waa dhagaxbuur waa inta kale ku dartay celweyn nogob ku taraha nogob waan ku weynaa fiiq iyo nogob baan ku labada waan kala qaaday fiiq iyo nogob waa laba Soomaa dhagaxbuur saddex Soomaa qabdahar afar Soomaa goday iyo wardheer dhahargeed afdheer 6 Soomaa أدوس تود قبل بنك جيجيا كدر ها أبسم ليه يا كله هل قبل بس عيد ما وان شيء وان شقنين وان شقن ها أنت هسات هاي مركع عليك وصلني توم قبل مركع هل قبل بعد يرت مركع أودي محار راعي أودي وملصقي كرا عبد القادر وقصة وضاي وحصل إلى السعدي سمينين عبد الرشيد ولا سمينين خضر معلن سمينين ما هذه أصلا ما هذه سمينين داود سمينين لقبور سمينين خضر معلن سمينين بقى محوها أي شيء ما عبد إلي سمينين داي مصطفى انتو عندها أوقبتك وحيسي حاور بحين يقول سوق يعني شعب كده حديثة وحال يقول مصطفى ومن حيلها النجي مرة معارسين مرة وحيسنين لكن ليش سام شيء
ما تفهم سما ولا السجاي الحرط قولك عشقينا قبل كنت أنا قلت أنا كل فليلنا لكن حقوق ذا يحقق عن ليه هاي مدرسي كرتدي أنا ماشي دون تهيج قاعد أما هلا يقعد أما هلا يقعد دقيست أما هلا يفوليو أما يلا فلونين أنا قعدت كي قدر إن أكون جارسيو للشدة دي أنا أقوله لي أقصنا ما أنت هذا حركة قري لي ولا قم ظهر هذا تذكر يا قري لو مهتسية عد كودي يكون موجنا يا waxay rabaan iyo rabitaankooda way qori la degmay lahayd والله نصينين إن كستو واحد بدن الله تريني لكن مركز طبعا هوش هاسوكله وحنا كوفشة نينك كرسي وكوفرديها حتى هذا وحيالها هاسوكله دعين كرين إسكاجت كرسي أنا والله كحبي أسوي إن هذاك شغله لو الناس بيحجع لكن وامح يا والله لو ماشى وكوفشة ننتهي وكوفشة ننتهي وهم سياسات ما تبغى سماه موقتها مركز ربط أذو محوها الله إن عبورته وين العابدة ما تبغى سماه إلهي لو أنا أكون حلانته لكن تنصعته وحرام وريان هذا أنا لا تشوفين ده فرط يا الملك هذا اللي قلنا قبل دم يا مصير ده دم وردير إن الدش هذا كوبا بعضه وواحد ولي جد علينا قبته هذا نشوفه وحكي لك أنا والله ونشكرها يعني دينته والله والله ما عزلات ما والله رك بدن با فير كدعنا والله والله بالله سو مغ علامه رك بدن با كمنيدك انا فدhiya haday ka dhici lahayda wallahi rag badan ba ku dhadhijin la wallahi meesha aan ku waayo hadii la doono hal lagu xiro hadii la doono hal ba ka dhacay waxa jira wax u baahan dhiig iyo damiir ruuxu waa inuu gobolkan u dhashay ruuxu waa inuu jifada makaahira u ka dhashay waa inuu damiirkeedii qaato وينو دمير كذا قاطو هذا ميلها قيركود إنك صو هذا الكائن وهبين مكاهل وحيد هم ونجيه لي أحمد ياسين لما كان لنا موسيقى معنا وحيد إن مثلات ما قادن كران مش الله ده محوها مش إنه هرهد السيء محوها عادي علن يو اسمه المجال هالشلابه ما قادن كران بي محو مكاهل يقول هاي مركا عليها سو مكاهل ما موسيقى معنا سينو هلين إلى بيسيء هذا محدود بجري هذا بجري قبل كورنير بد مزول كته وزير كيدين أتكون متشاي قبل كقبضها رمت هذي كان قبيل أهان هذا حبوس كورنير دوسنا هذا قبيل أهان وكورنير ولا لك حبي يسيرو وحط الصمين لهيد محي قبل كتشحدين ما عارفين هذا الشلاب حط رئيسه قرصوني الدقمة دوقة دقلهيد محا علينا الدقمة دوقة دقلهيد لا صار هرمين الدقمة دوقة دقلهيد صدق إحنا الدقمة يقول الشلاب أنا أحوق بدن يا مركب كبعد عاصمة الشلاب لقى دقلها بهجري iyo waxa israaciilha marka nimanka la dhaho iyo musuq macalin gobolkooda ayar ku fariisan lahaayeen oo jeexdin ah caasimadiisuna shalaaba tahay baar dheerana muxuu yahay baash maxaa laba baarna degma looga dhigi lahaa barkidir ma taabisa ma hadii la doono tan marxaanka ba hal siiyo marxaankan ayar ba degmadoodu ay hoos imaan lahayd gobolka amaarti jeexdin marka wax kastaba ha dhacday masiibada war dheer haysata waxay noqotay siyaasiyiintiisa nimankan baarlamaanka ku metelay فيري تيدي نمكن وزيرada oo ah ama ma jirteen ka yimaado ama hartaha ka soo baxo ama reer Yunus ha ahaado ama ha ahaado makaahil nin kasto yahay waxa hakraday waa nimankaas way hadda maxaa laga qaban karaa marka hadda waxa laga qaban karaa ka soo qabasho mata 20 years gobol lagu daray in ilaahay horta noogu horeeyay ilaa maalinka ii daahir laga qaaday xilka gobol la magacaabo waxa noogu horeeyay in ilaahay nogob kaliya ku daray gobolada نجستي محصو هاري حدا يتمد أفر قبل بعتمد والله 20 سنة لو جسي سوق تكلم ويا وعلشان أمرك إلهي وجرا إلهي يرو نصر كلا نوكر وصل تقل لكن قبل كاوردير حدا ضدكوا يستعليه وولاله أذيك واحد كوسو كرني من بعد ديدي بهاشي وما جرتين بديدي كنا مثلا مرحبا بديدي كنا مثلا أبي يونس بديدي كنا مثلا بديدي كنا قبل كوالا كنا شرينه والبسامي جاي بالكي واحد بوي بلارنسا وحنا بجت بيانا ليس واحد كستوى dadkiina way kordhayaan shaqadiina way kordhaysaa baarlamaankii way kordhayaan wax walba waa wax ku soo kordhay adiga weligaana ku tirsanaanaya ma tahay ma wadanka Ethiopia inkasta uu jiro saami aad ku xisaabtanaysay mar walba ahaanaysa ma tahay walaal ha ahaatee meeshaas waxana dhigay waa gobolka siyaasiyiintiisa ku metelaya weeyaan gobolka siyaasiyiinta ku way alliance baa loo yeeshaa marka qaarkood gobolka ruuxan inagu isku haynay siyaasadda waxa ka weyn gobolka waxa uu yahay aan kala jarano oo subcad u soo jeedin hadda ninka dhul baahantay waa saaxiib ninka la dhaho inac jar waxay ahayd xaqa iyo xuquuqda uu leeyahay inuu wareer u keeno xaqa iyo xuquuqda uu leeyahay Axmed Yaasiin uu keeno
kama jarteen isagana wasiirka uu sidoo kale sameeyo kan gobolka jooga sidoo kale ku dadaalo nin walba war gobolkan wada lahayn aan waxayna kaansano in lagu dagaalamay ahayd waxa inaga naga dhaxeeya jafaajo qabalayada iyo santaradan iyo waxan kale iyo waxayna hoose waa gooni inaga xalisaneyn nin walba sidoo siyaasadda ugu badiyo yuu ku helaya midaas waata marka adigoo aad u mahadsan waxa weeyaan gobolka Wardheer waana la dunsiyay waana lagu istaagay annaga kulay saaxiibtinimadii zaidka ahayn Mustafa u qaadnay way dhamaatay maridage mar dambe hadduu idago ya aniga maxaa ahay ha ma taabsama horta mar dambe soo dhaweyn dambe iyo isu imaataan dambe dad Soomaaliyeed ma wadanahay wallaahi sumaga ilaahay maanta ma joogo inkastoo dadkaygu ayna damiir lahayn wax ii dhiidhiyayo oo ii dhaqaaqayo oo aan intay si fiican ii taageeraan ee waxaysan aan gacanta ku haynin Mustafa maanta wuxuu iga marayaa inaana mar dambe cod iska daayay saameyn dambe aan isku yeelan gobolka Wardheer waa gobolka oo la bixiyay halkan ka artay bixiyay fiiri gobolka Wardheer wuxuu ahaa waa gobolka ugu taariikhda dheer Soomaali gubada aad aragtay meesha ay ka horeysay iyo meesha ka bilaabatay Wardheer baxdura fiiri historiga iyo taariikhda gobolka Wardheer uu leeyahay waxaan idin muduri kala la dagaalamaysa kii u dhashay baba sidan sameynaya artani camul iska qad ceelka haran magan haday curudada inuu leeyahay waa cabilahay علشان مركا وليه عمود حاجة كويا ووردر برتن كده واسا قبيلة جبوع دن هالك سك صورتي أبوانين تدن الصوماليات أنت بدل أبوانين الصوماليات قبل كي كسر شيء ما قبل كا وي عبد القادر وي هي أنت سينكسر قبلنا كاسنا وحوها عبد القادر رجع عبد فلنقية وين رج عدا سياسيها ديان كصومالية كسر شيء جارهان قبل كان الدولة وحي كسر قرنا مقالة إن الدنباء يعني كسر قدبين دورنا إذا مكبه نبتقلي يا صاحبي